korniimada maskaxda ilmaha jira halka sano. In badan waxaan ka hadalnay marxaladaha korniimada maskaxda ilmaha. Annagoo ka soo bilownay ilmaha markuu dhasho ilaa maanta oo aan ka hadlayno ilmaha jira da'da sanadkan. Asxaabay waxaan idinka codsanayaa intaanan guda gelin mowduuceena inaad akoonkeena TikTok-ga aad follow noo dhahdaan. Sidoo kale YouTube-ka profile-ka saarana aad subscribe noo saartaan. Aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa qof kasta oo codsigaas ii sameeyo. Mahadsanidin. Haddii aan guda galno mowduuceena ilmaha da'dan jira si loo ogaado in maskaxdiisu korayso, waxaan sheegi doonaa dhowr arrimood oo lagu garanayo horumarka korniimada ilmaha. Waxaa ka mid ah waalidkiis hadday tagaan inuu ooyo, dadka uusan aqoon uu ka baqa oo ka xishooda hadalkaaga ayuu ku soo celiyaa si uu dareenkaaga u soo jiito. Sida haddii aad wax ku qayliso ama hadal ku dhawaaqdo inuu kaa daba dhaho. Marka dharka u xiriso gacantiisa ama lugtiisa ayuu geliyaa dharka. Haddii aad fanaanad ama surwaal u gelinaysid inuu asagana sii gashanayo camal. Wuxuu raacaa tilmaamaha iyo hadalka qofka. Ilmahan koobka ama shayga uu wax ku cabayo si sax ah ayuu u qabsan karaa. Shayada loo magacaabo wuu garanayaa. Ilmahan haddaad wax ka qariso wuu raadinayaa. Socodka ilmahan wuxuu qaadaa tallaabooyin. Sidoo kale wuxuu fariisan karaa meel sax ah isagoo la caawinayo. Ilmahan sidee ayuu u qeexaa baahidiisa ama waxa uu rabo. Wuxuu isticmaalaa tilmaan asagoo u socda dhanka shayga uu rabo, soo ku dhawaaqaya hooyo ama qof magaciisa. Hadallada aad dhahdo ayay ka daba dhahaan. Waxay ka jawaabaan codsigaaga sida ii keen ama kaalay. Waxay ka jawaabaan codsigaaga sida ii keen ama kaalay haddaad dhahdo inay ku imaadaan ama soo qabtaan shayga tiri ii keen. Talada waalidka si ay u kobciyaan ilmahan maskaxdooda. Ilmahaaga la ciyaar shayada intaad ka qariso raadi leh. Ciyaartu waa shay aad muhiim u ah. Ilmaha 7 sano ugu horeysa waxaa wanaagsan in la ciyaaro. Isku day inaad ku caawiso markaad dharka u xirayso inaad dhahdo gali gacanta ama lugta. Ilmahaaga ku dhiirigeli inuu dhaho hadallada ama uu ka daba dhaho. Haddii hadalkaas dhaho ama isku dayo ilmahaas dareensiin inuu wax weyn sameeyay adoo u sabcinayo tusaya ma dareensiinaya inuu wax weyn sameeyay. Walxaha aad ku dhawaaqdo tus inuu tilmaamo oo uu taabto. Sida haddaad dhahdo badanaa waxaan dhahnaa dhagtaadi meeday iyo waxaas sidaas oo kaleeto ilmaha waxay kobcinaysaa maskaxdiisa.